shuruudda salaada waxaa ka mid ah intaadan salaada gelin inaad la timaadid saddexdan arrimood. salaadan maalin walba 5 mar tukada ugu yaraan ma liga aqbala mise ligama aqbalo? waa su'aal aad u qiimo badan oo jawaab u baahan. nabiga sallallahu alayhi wa sallam wuxuu yiri inna ar-rajula la yusalli 60 sana wama tuqbalu lahu salah. qofkiin waxaa laga yaabaa inuu 60 sano salaad tukanayay oo hal salaad laga aqbali waay. laa ilaaha ila allah. bal taas waxaa ka sii dana nabiga sallallahu alayhi wa sallam maalin wuxuu arkay nin salaad tukana inuu saan u fiiriyo. wuxuu yiri wallahi qofkan hadduu saan ku dhinto wax iska bedeli waaye wuxuu ku dhintay asigoo diinta Muhammad aan haysanin. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wuxuu yiri qofkiin waxaa laga yaabaa inuu duqoobo asigoo muslim ah laakiin hal ragca oo dhameystiran inuusan ilaahay ka aqbalin. alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah. walaala ilaahay dartiisu jaara meel adduunka ka joogtaan. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waa xalaqadii 6aad oo barnaamijkii ahaa salaada iyo axkaamteeda. walaalayaal xalaqadii lasoo dhaafay khamiistii lasoo dhaafay xalaqadii 5aad waxaan kasoo sheekeynay qofka inuu cawradiisa asturo in laaga baahan yahay inuu salaada galo. cawrada la asturaayo iyo sababta loo asturaayo maxay tahay xalaqadaas u noqon. tii 4aad waxaan kasoo hadalnay shuruudu salaa also waxaa ka mid ah weysada fadaa'isheedaan kasoo hadalnay. tii kasii horeysayna waxaan kasoo hadalnay sababta loo weysaysanayo maxay tahay. maanta oo xalaqada 6aadne barnaamijkeena shuruudihii salaada ayaan wadaynaa oo ah waxyaalaha loo baahan yahay inaad la timaadid intaadan salaada gelin ka hor. waxaana ka mid ah 3dan arrimood oo maanta aan sheegayno inaad samaysid. tan koobaad lagaaga baahan yahay salaada intaadan gelin inaad la timaadid waxaa waaye طهارة البدن. korkaaga inuu daahir ahaado, korkaaga inuusan nijaaso lahayn. waxaan rabnaa inaan kala saarno wasaqda iyo nijaasada. waxyaalaha nijaasada waa naqaanaa, kaadidoo kale ka mid ah, saxarada ka mid ah, dhiiga ka mid ah. waxyaalaha nijaasada korkaaga inuusan lahayn, korkaaga inaad daahirisid. haddii meel nijaaso kaa gaartay ama madaxa ha noqoto ama farta ha noqoto ama lugta ha noqoto, meel kastoo korkaaga ka mid ah haddii nijaaso gaarto waa inaad ka dhaqdid. nabiga sallallahu alayhi wa sallam maalin maalmaha ka mid wuxuu soo maray qabri. wuxuu yiri labadan qofood la yucadabaan. laba qabri uu soo maray. labadan qabri wuxuu waa la cadaabooyaa. midkood waxaa ka mid ah waxa midna nadiimadu dadku u geegeyn jiray, midna wuxuu yiri korkiisa kaadida kama ilaalinaynin. soo ma jeed waa nijaaso, kaadida waa nijaaso, korkiisa kama ilaalinaynin. idan dharka korkaaga inaad ka ilaalisid nijaasada. haddii ku gaarto iska dhaq. kaadi waa ku gaari kartaa, kaadi cunugaaga ku gaari karo, gabartaada ku gaari karto, kaadi qof kale kaadiya ku nijaaso ku gaaraysaa. laakiin waxaa loo baahan yahay nijaasada korkaaga gaarto inaad dhaqdid ayaa loo baahan yahay. arrinta labaad oo loo baahan yahay inaad la timaado intaadan salaada gelin waxaa waaye طهارة الثوب. dharkaaga inuu daahir ahaado. dhar nijaasi kuma tukan kartid. hadduu nijaas leeyahay waa inaad iska dhaqdid, ama haddaadan haysanin mid kale inaad qaadatid oo iska bedeshid ayaa loo baahan yahay. asmaa binta abi bakr radiyallahu canha waxay tiri qofteenna waxaa laga yaabaa dharka inuu ka gaaro xaydka, dhiigga caadada inuu ka gaaraa laga yaabaa. oo waxaan samayn jirnay tiri kunaa nafrukuhu, dhiigga meeshuu gaaro marka hore waa ka hooli jirnay oo waa ka jijibin jirnay. kabacdi thumma naqsiluhu, kadibna waan dhaqi jirnay. thumma nusalli calayh, kadibna waan ku tukan jirnay. soo ma jeeda dharkoo nijaasa laguma tukan karo. dharkaa ku tukanaysid waa inuu noqdo daahir. sidaa darteed intaadan salaada gelin waxaa loo baahan yahay dharkaa wadatid inuu daahir ahaado. ha isku qasin dharkaa nadiif waaye iyo daahir waa labay kala yihiin. sometimes waxaa laga dharkaagu qamiiskaagoo nadiif inay nijaasa gaarto kuma tukan kartid, waa inaad dhaqdid. khamiiskaagoo wasakh ah inuusan nijaaso lahaynaa laga yaabo waa ku tukan kartaa. marka aan kala qaadno wasakhda iyo
طهارة أن كلا قادنو درك وحالو بها إنو طاهر أهاضو شرط ما أهن إنو نظيف أهذا أو موسق هذا لكن وإنو طاهر أهاضو دركاس تنسد هذا لقاقا باهن وحاوا إنت هذا صلاة قلين ميشا كنتو كنيسة إني طاهر أهاتو نعم ميشا كنتو كنيسة طاهر إني أهاتا واي أما مصلي كيسو إيقو أما ديك لقوريقا ميل كسميسو أو كنتو كنيسة أما بنانك واسع ميلها طاهر أو كنتو كنكرتاي لكن ميل نجاسكم متو كنكرتي أنس رضي الله عنه وحورنا حديث وحوير نين أعرابي أيام مساجد كي يمد أووكو كاذي صحابة دي واو دي يستيقظ ورجوجي جوجي الوالو قيلي نينكي مركا ورسول صلى الله عليه وسلم وحول سوق فراحك قاضا كاذي دي سهر لما يستو نينكي كاذي دور لما يستي رسولك صلى الله عليه وسلم وحوير بالدي بيا كانوا كشو ميشو نينكو كاذي مركاس الرسول صلى الله عليه وسلم وحو كيري النبي صلى الله عليه وسلم وحو يري مركا ميل هدي نجاسة قارتو waxaa idin kaga filan biyo inaa ku shubtaan laakiin saaxiibkiina mawlaalkiina maanta haddaa kaadida oo ku buuqi lahaadeen laba midaa dhici lahayd ama ninka inuu naxay kaadida ku dhagto laga yaabo inuu dhinto ama orodku ordo kaadida masaajidka inuu wada gaarsiiyo laga yaabo raxmadda nabiga sallallahu alayhi wasallam fiiri marka meel hadii nijaasa gaarto dhulkoo kale markii nijaasa gaarto waa la taahiriyaa waxyaalaha lagu taahiriyo waxaa kamid ah in biyo lagu shubo oo laaga tago biyaha dhuuqo ama in la soo qaado lagu dhaqo si kaarbadka kale oo lagu dhaqo ama uu qalalo saddexdaasba waxay sameeyaan way taahiriyaan kaligiis inuu iska qalalana taahir ku noqon karaa biyo in lagu shubana way noqon kartaa in laga dhaqo si kaarbadka kalena waa la sameey karaa laakiin waxa shardi ah meesha ku tukanaysid inay taahir noqoto waxaan rabaa inaan baraarujiyo arrin muhiim oo ku saabsan meesha lagu tukanayo dadka laba waaye qaar shaki badan oo ziyaada iyo qaar mutasaahiliin labadaba looma baahna waxaa loo baahan yahay qofka dhexdhexaad inuu ahaado qaar shaki badan dhulka hadduu arko wuxuu ku leeyahay meeshan waxaa laga yaabaa inuu maalin ay ku kaadiyey maalin inuu qof soo maray war meeshan banaankan cad iska banaan yaa ku dirsada nadiif waaye al-asl maxaa waaye tahaara waaye meel banaana tag saxra tagtay hadhihin meesha amug ay ku kaadiyey ama sameeyay ku tuko dadka qaarkood gurigooda ma raba inay ku tukadaan wuxuu ku leeyahay waxaa laga yaabaa cunugayga inuu soo maray asigoo kaadile shakiga badan ma fiicno tan kalena meel oo kaadil ah ogtahay uraysi inaa ku tukatidna ma fiicno waxaa loo baahay marka meesha shakiga badan iska yeeleysid dhulka taahir waaye unless inaa ku ogtid nijaasa ma hadaa nijaas ku ogtid masalla dhigo ama iska dhaq hadaba walaaliyaal shuruud as-salaah oo soo sheegnay waxaa kamid ah طهارة البدن والثوب والمكان قفك كركيس إنه طاهر يحي أوكي دركيسنا الداهر يحي ماشو كنتو كان يا طاهر يحي sometimes ذاتك وحي اسكو قصان نجاسة ذا إيو طاهر هذا إيو وحي اسكو قصان إيو نظافة ذا اسكو قصان لبي كليهين كركاغا هدي نجاسة قارتو واسكا دقيساي دركاغا هدي نجاسة قارتني واسكا دقيساي meesha ku tukanaysa deeni nijaasa gaartan waa iska dhaqaysaa qasab ma dhar cusub inuu ahaado ama dhar nadiif inuu ahaado nijaasada iyo nadaafada labay kala yihiin saddexdan arrin oo amaanta sheegnay waxay kamid tahay shuruud as-salaah waxa kale oo shuruud as-salaah kamid ah tahaaradii oo aan ka soo sheekeyno oo weysada hadath al-akbar wal asghar inuu qofka zuuliyo haduu qof inuu weysiistaan ka soo sheekeyno qofka inuu haduu janaabayn inuu qabaysto oo tahaara loo baahan yahay waxaa kaloo kamid ah inuu qofka qiblada u jeesto qiblada loo jeesanayo kacbada waaye sababta kacbada loogu jeesanayo maxay tahay goormaana loo jeestay kacbada qofka hadduu musaafir yahay ma ku qasban yahay kacbada inuu u jeesto mise meel kasta u jeesan karaa maxaa u dhaxeeya qofka waajibka tukanaya iyo qofka sunnada tukanayo qasab miya labadaba inay kacbada u jeestaan سؤالوين دنا إن شاء الله تعالى وحن كجواب دونا خميس تصوصعته وحن نقطة قفك أهريو أو دعوة إلى خميس تصوصعته لجارين وحن لجارها كان إنا سفي عن ليستو كعل عشتي كوي كهريينه أو كسو شيكينا يقفك إنه عوردي سأستره إنه سوي سيستو أو صلاة كشيكينا ينه إنا سفي عن دعوتي مركا دعوتي وكفى إذا ستدني
walaalaha kale usii gudbi bakhiil ha noqonin khayr allah ha ku siiye ugu dambayntiina allah subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa dembigeenna inuu dhaafo dembiga waalidkeennana dhaafo ahlu jannana naga dhigo salaadeenana ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga aqbalo ilaahay inuusan naga dhigin dadka 60 sano markay soo tukadaan aakhira yimaada leeyahay salaad meesha kuma hayso ilaah waa ka magangalnay kuwaas ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa salaad inuu nagu irsaaqo inaan ku khushuucno اللهم آمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم وإنه خميس تصوصعته إيوه حلقة عصب أو كصابسا صلاة إيوه أحكام تهذا إلى خميس تصوصعت الأجارة وحلقة إنا دقي ستيد وكعمل فشيد وكفى إيدي ستيد ولا لها كالمسيق جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إلى هدرتي سعيدي جعل هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته